kooxda kubadda cagta Everton ayaa mar kale raajicinaysa dalabka Koulibaly. West Ham United ayaa sheegtay inay xoojin doonaan hamigoodii ku aadanaa laacibka kooxda Chelsea Abraham. Real Madrid ayaa soo bandhigtay sharciga cusub ee ku aadan Rafael Varane. Juventus ayaa mar kale shaacisay inay dib ugu soo celin doonaan garoonkooda xidigoodii hore ee Moussa Kean. Tababaraha kooxda kubadda cagta Arsenal Mikel Arteta oo sheegay inay kooxdiisa la soo wareegi karto xidiga Maddison. Andrea Belotti ayaa go'aan ka gaaray mustaqbalkiisa kooxdiisa Turin. kooxda kubadda cagta Everton ayaa mar kale raajicinaysa dalabka Koulibaly. Rafa Benitez ayaa doonaya in Everton u dhaqaaqdo saxiixa Koulibaly xilli ciyaareedkan. Ciyaaryahanka reer Senegal ayaa u arka dhaqaaqista horyaalka Premier League mid wanaagsan, waxaana laga yaabaa inuu ka soo dhaqaaqo horyaalka Talyaaniga xagaagan. Koulibaly ayaa sanadihii ugu dambeeyay waxa aad loola xiriirinayay kooxaha ugu waaweyn horyaalka Premier League, balse Janis waliba oo laacibkani soo marta waxa ka hor istaagan maamulka kooxdiisa Napoli. Rafa Benitez oo ah maamulaha cusub ee kooxda Everton ayaa ballan qaaday in kooxdiisa diyaar u tahay in ay galaan tartanka adag ee ku saabsan xilli ciyaareedkan cusub horyaalka Premier League. West Ham United ayaa sheegtay inay xoojin doonaan hamigoodii ku aadanaa laacibka kooxda Chelsea Abraham. West Ham United ayaa horkacaysa dalabka lagu baacsanayo xidiga kooxda Chelsea ee Tammy Abraham, balse Aston Villa ayaa weli ka samrin dalabka Abraham xagaagan. Chelsea ayaa markii hore dalbatay adduun dhan 40 milyan oo euro oo ku saabsan dhaqaale ururinta oo doonaya maamulaha Chelsea ee Thomas Tuchel. Lacagtan ayaa loo arkaa mid aad u sareysa dhanka kooxda uu hogaaminayo David Moyes, laakiin sida laga soo xigtay The Sun, West Ham ayaa kula soo wareegi karta laacibkani Abraham 30 ilaa 35 milyan oo euro. Juventus ayaa mar kale shaacisay inay dib ugu soo celin doonaan garoonkooda xidigoodii hore ee Moussa Kean. kooxda kubadda cagta Juventus ee ka dhisan horyaalka dalka Talyaaniga ayaa doonaysa mar kale inay u dhaqaaqaan dalabka ku aadan xidiga Moussa Kean. Laacibkan ayaa muddadii amaahda kula joogay kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ee horyaalka Ligue 1 wadankaasi Faransiiska ayaa waxa uu soo jiitay maamulaha cusub ee kooxda kubadda cagta Juventus ee Massimiliano Allegri. waqtiga kan xaadirka waxaa loo arkaa muhiimadda koowaad ee xidigan Moussa Kean, kaasi oo la doonayay in mar kale dib lagu soo celiyo horyaalka dalka Talyaaniga gaar ahaan kooxda kubadda Juventus. Allegri ayaana markaa xusaya awoodda ku jirta ciyaaryahankan reer Talyaani inay tahay mid la doonayo waqtiga kan xaadirka inay kooxda ay ka faa'iideysan karto. walow tababaraha kooxda kubadda cagta Everton dhankiisa uu sheegay in ay doonayaan ciyaaryahankan inuu ku sii nagaado kooxdiisa, maadaama tababaraha cusub ee kooxda kubadda cagta Everton uu doonayo isbedel xoogan in uu ka sameyn karo saameynta ku aadan horyaalka cusub Premier League xil ciyaareedkani. natiijo walba kooxda kubadda cagta Juventus ayaa diyaar u ah waqtiga kan xaadirka inay xoojiyaan dalabka ciyaaryahankaasi Moussa Kean. Real Madrid ayaa soo bandhigtay sharciga cusub ee ku aadan Rafael Varane. kooxda Real Madrid ayaa dejisay qarashka ay ku fasaxayso difaaceeda reer Faransa Rafael Varane. Real Madrid ayaa dalbatay adduun dhan 50 milyan oo ay ku doonayso in ay ka helaan Manchester United si ay Rafael Varane u fasaxaan. Manchester United ayaa ka hor u soo bandhigtay 45 milyan, laakiin waa inay kordhiyaan dalabkooda si ay u helaan Rafael Varane. Real Madrid ayaa doonaysa inay lacag kaash ah ku hesho Varane ka hor inta uusan noqon wakiil xur ah sanadka 2022, iyadoo difaacan uu doonayo inuu tartan cusub meel kale ka bilaabo. tababaraha kooxda kubadda cagta Arsenal Mikel Arteta oo sheegay inay kooxdiisa la soo wareegi karto xidiga Maddison. kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa mushaaraad aad u fara badan u soo bandhigtay xidiga kooxda Leicester City ee James Maddison. Daily Star ayaa sheegaysa in tababaraha kooxda kubadda cagta Arsenal Mikel Arteta uu dadaal ugu jiro qaabka uu soo xirigelin lahaa ciyaaryahankan ka tirsan kooxda kubadda cagta Leicester City ee James Maddison. 24 jirkani ayaana markaa lagu tirinayaa in uu ka mid yahay halbowlayaasha ee kooxda kubadda cagta Leicester City, laakiin tababaraha kooxda kubadda cagta ee Leicester City ee Brendan Rodgers ayaana markaa la sheegay inuusan waqtigan xaadirka uusan eeganin qaab ciyaareedka ciyaaryahankaasi, laakiin Leicester City ayaa doonaynin inay waqtigan xaadirka fasaxaan xidigooda Maddison maadaama laacibkan dhowr dalab ka soo gaaray qaar kamid ah kooxaha ku xifaaltamaya horyaalka wadankaasi Ingiriiska Premier League. Arsenal ayaa diyaar u ah inay markaa u soo bandhigto xidigan James Maddison adduun dhan 200 oo kun oo gini isbuucii, taasi oo lacag aad u fara badan. shakhsiyan ciyaaryahanku aad u danaynayo inuu bandhig cusub ee mar kale uu ka sameeyo kooxaha ka dhisan horyaalka wadankaasi Ingiriiska, laakiin maamulka kooxda Leicester City ayaa ugu dambeyn sheegay inaysan fasaxi karin laacibkooda James Maddison. Andrea Belotti ayaa go'aan ka gaaray mustaqbalkiisa kooxdiisa Turin.
waryaanka kooxda kubadda cagta Torino Andrea Belotti ayaa diyaar u ah in uu go'aan ka gaaro mustaqbalkiisa kama dambaysta ee kooxdiisa kadib markii laacibkan dhawaan la xiriirinayo kooxda kubadda cagta Roma sida laga soo xigtay Sky Italian 27 jirkan ayaa ka caawiyay xulkiisa Talyaaniga ku guuleysiga tartanka koobka qaramada qaaradda Yurub ee dhawaan markaas uu gabagaboobay. Andrea Belotti wuxuu haystaa dooq ku aadan inuu guud ahaan ka dhaqaaqi karo kooxdiisa Turin, laakiin Roma ayaa loo maleynayaa inay diyaar u tahay in ay gudbiso dalab gaaraya 30 milyan oo lacagta Euroga, dalabkaasi oo ku aadan 27 jirkan kooxda Turin Andrea Belotti.